Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mar kale iyo muuqaal cusub kusoo dhawow BTH. Muuqaalkan waxa uu ku saabsan yahay oo aan uga hadlaynaa KineMaster sida loola soo dego iyadoo watermark aan lahayn. KineMaster waa barnaamijka muuqaalada lagu editan gareeyo ee mobilka loo adeegsado markaasi ama mobile video editing mobile. waa barnaamijka ugu wanaagsan markaasi ugu tayada wanaagsan ee adoo mobilkaaga adeegsanaya aad ku samayn karto muuqaalada aad ku editan gareyn karto ku jarjari karto ku qurxin karto aad ku habeyn karto markaa si professional adigoo mobilkaaga adeegsanaya oon wax computer u baahnayn. haddaba KineMaster markaad Play Store u doonato ama markaad App Store u doonato waxa ay leedahay watermark ama calaamad baa la socota markaa oo calaamadaasna ay lacag u baahan tahay inaad kaga qaado. haddaba waxaan barnaamijkan kugu hayaa ama muuqaalkan aan kugu hayaa sidaad ula degi lahayd iyadoo wax watermark aan lahayn lacagna aan kaaga baahnayn oo freeya oo markaa fiirshankii ugu dambeeyay kusoo dhawo muuqaalka. صوم بشهر رمضان صوم KineMaster marka ugu horeysa soo furta qaabkani markaasi kugu soo bixi doontaa inta ku editan garaysa ama aad hore u adeegsatay waa garanaysaa qaabkeeda. fiirshankeedu waa fiirshankii ugu dambeeyay ee 4.13.2 waa fiirshankii ugu dambeeyay oo waxba kama dambeynin. waa free waa markaasi wax watermark ma laha. qaybta hoose description-ka ayaan ku dhigaya halkaas aad kala degi doontaa iyadoo free haddii aad u baahan tahay KineMaster in aad mobilkaaga ku samayso muuqaalo markaasi aad iyo aad u tayo wanaagsan. sidoo kale halkan waxa ay leedahay KineMaster unlimited video layer mode oo layerada waxa markaasi laga dhigay unlimited oo ma xadidna. awal hore way xadidnaan jireen hadda frame rate-ka exportga iyo importga labadaba waxaad markaasi aad ku samayn kartaa 60 fps iyo 240 fps baad ku samayn kartaa oo ku export gareyn kartaa ku soo import gareyn kartaa. marka ugu horeysa muuqaal diyaarinayso saddexda qaybood bay leedahay KineMaster. waa 16 waa qabtan waa reeshinadii markaasi oo waxa saddexda nooc qaabka muuqaalkaaga u sameysmay ayaa dooran doonta. marka qaabkan aan dooranayna hadda waa qaabka markaasi ugu quruxda badan ee muuqaalada lagu diyaariyo inta badan. background ma dooran doonaa markaasi aan ku tijaabino sameynta muuqaalada ama bilowgaba haddii aan idhaahdo. qaybta qoraalka inta lagu sida loo update gareeyay ama waxa lagu soo kordhiyay baan eegi doonaa. tagasti haddii aad halkan ku qorto qaabkan markaasi kugu soo bixi doonaa. colorka haddii aad ka bedesho ood ka dhigto huruud ama huruud baan ka dhigi doonaa. colorkaasaan ka dhigi doonaa. qaybtan waxaa lagu soo kordhiyey outline text option shadow glow iyo background color baa lagu soo kordhiyey. intaasiba way leeyihiin. blendingka qaab cusub baad markaasi u adeegsan kartaa oo haddii marka nooca aan sameyno saas u ekaanaya odiga arkaya taana noocyada soo fara badan baad markaasi u adeegsan kartaa qoraalkaaga. sidoo kale opacity-ga waad ka yareyn kartaa si khafiifaad ka dhigi doontaa markaasi. qaybtan text outline-ka haddii aan eegno adiga arkaya text outline baa halkan lagu soo daray. sidoo kale waxaad ka dhigi kartaa transparency oo qaybtan qoraalka dhex ama colorka dhexdood ka qaadi kartaa. sidoo kale halkan waxaa lagu soo kordhiyey shadow oo qaybta dambe aad hadha ugu samayn karto. waxaa lagugu soo kordhiyey glow oo qaybta hareeraha aad markaasi shucaac ugu samayn karto ama shape. sidoo kale halkan waxaa lagugu soo kordhiyey markaa qaybta storeka haddii aan tagno stickeradii qaar cusub baa halkan lagugu soo kordhiyey. sidoo kale effectskii qaar cusub baa lagugu soo daray. transitionadii waa la update gareeyey. noocyo cusub baa lagu soo daray adiga arkaya. qaybtan waxa weyn animationadii oo animationada haddii imakaan markaasi mid kamid aan adeegsano qaybtan calamaanta haddii aan eegno download baad odhan doontaa 2.8 weeyaan wax saasi badan maaha. wuu noo soconayaa kan stickerska haddii aan eegno iyadana noocyada cusub markaas lagu soo kordhiyey si fiican ba loo update gareeyey. tagasti title-ka haddii aan eegno qaybtan lawarta digana isagana download baad odhan doontaa waa in yaro noqon. transitionadana noocyadan cusub baa lagu soo kordhiyey. qaybtan tagastiga haddii aan eegno fontiyada noocyo cusub baa sidoo kale lagu soo daray halkan oday arkaya. nooca jeceshaad markaasi soo download gareysan doontaa. ayarma download odhan doontaa markaasi uu ku download gareynaya waanaad adeegsan doontaa. markaa download baad odhan doontaa ku install gareynaya isla markaaba daqiiqada gudahood waa wax aad u sii badan maaha MB-yadiisu. sidoo kale halkan graphics noocyo cusub lagu soo kordhiyey. qaybtan graphic haddii aan markaasi mid kamid ah download gareyno kaasiga laftiisa noo deji. codadkii qaar cusub baa lagu soo daray halkan. download baad odhan doontaa. sound effectska qaar cusub baa lagu soo daray. download baad odhan doontaa.
markaasi qaab qurux badan ayuu markaasi kugu editin gareynayaa. imika kan haddii aan ka dhigno qeybtan fade in ama si markaasi uu si qurux badan usoo baxo marka uu muuqaalku bilaabmayo, adiga arkaya. sidoo kale textiga waxaad u samayn kartaa animation oo qeybta marka uu soo baxayo oo sidoo kale adiga arkaya. sidoo kale halkan waxaad ka yareyn kartaa ood ka badin kartaa waqtiga uu markaasi uu soconayo. haddii imika kan aan saa gudayno auto animation kan aan ka dhigno kan adiga arkaya muuqaal marka aad saa soo shido markaaba qaabka quruxda badan ba markaasi usoo boodaya. sidoo kale haddii markaasi aan u sameyno graphicskan soo dhowl garaynay qaabkaasu markaa u sameynaya adiga arkaya. nooca la nooca jeceshaba lasoo degi doonta markaa ee muuqaalkaaga kusoo baxaya ama muuqaalkaaga uu ku saabsan yahayba. imika kan adiga arkaya. sidoo kale qeybtan kalarada qaab cusubba loogu soo daray, adiga arkaya qaab cusubbaad markaasi u sameyn doonta kalarska, adiga arkaya. waad ka khafiifin kartaa nooca aad jeceshaad ka dhigan doontaa markaa. adjustmentigana adiga arkaya sida laga dhigay noocyo aad markaasi aad u cusub. brightnesska aad ku badiso, contrast baa lagu soo daray, saturation baa lagu soo daray, frequency baa lagu soo daray, temperatureki baa lagu soo daray, highlightkii, shadowgii, markaasi geenkii, gaamadii, waxaasoo dhan baa lagu soo daray. awal hore kumay jirin. qaybtan feednetka waxaad u isticmaali kartaa harka ama dhinaceeda ka raacaya. haddii imika graphics ka reebno oon soo reebno kalarkii oo caadiga adiga arkaya, harka dhinaceeda ka raacaya weeyaan, adiga arkaya qaabka markaasi uu kugu soo baxayo. sidoo kale waxaa lagugu soo daray animationo. labartardiga waxaad samayn kartaa qaabkan oo waxa weeyaan qoraalka marka dhinaca kasoo baxaya. imika haddii aan settingka tagno kan waad ka masixi doontaa, kan master fontigaa soo dholgarasid waad ka dhigan doontaa. noocyada kale aadka quruxda badanna way wadataa. kimika haddaan soo dejinay waa kan, kaasaad ka dooran doontaa, okay baad odhan doontaa. kan hoosena waxaad gelin doontaa muuqaalka, isagana noocaad jeceshaad ka dhigi doontaa markaas. adiga arkaya qaabka usoo baxayso, halkaa hoostaad soo gelin doontaa. markaad muuqaalka saa u bilowdo textig baa soo dhacaya, labartardigina hoostana kasoo baxaya markaa isla markaaba. transitionada haddaan eegno halkan background kalan kusoo kordhin doonaa. transitionkana halkan aad kusoo dari doontaa, qaybta storeka tegi doontaa. transitionka aad jeceshaad halkan kala soo degi doontaa. kan cusub yahay haddii aan markaasi kan dejino kan eegi doonaa markaa. waa kan isla markiiba soo galay, qaabka u shaqeynaya adiga arkaya. transitionku waxa weeyaan waa animationka u dhexeeya labada muuqaal marka isdhaafayaan ama labada sawir marka isdhaafayaan adiga arkaya. waliba kana madow, kan haddii aan ka bedelno kalar kale caadiga haddaan soo saarno adiga arkaya qaabka markaasi isku dhaafayo. noocyadii hore iska lahaydna waa kuwan markaasi aad eegto. nooc markaa aad u qurux badan baad u sameynaysaa. codadka sidoo kale halkan waxaa lagugu soo daray noocyo cusub, kaad kusoo darto. sidoo kale codka waxaad ka dhigi kartaa fade in iyo fade out oo labadaasaad u furi doontaa. jarjaritaankiiba isaguna sidoo kale la socda. qoraalka muuqaalka si qurux badan markaas u sameysmaya. qaybta exportigana waxaad ku dul dhufan doontaa qaybta xaggaa sare 720 maad ku update markaas ku export garan kartaa. qaybtan waad buuxin doontaa, export baad oranaysaa. si markaasi dhaqsiya ayuu markaasi kugu export garanaya ama muuqaalkaaga uu kugu download garanaya ama uu ku shubaya device-kaaga.
wuu leeyahay export ama resolution ka sareeyo waa uu leeyahay hadba mobilkaagu sida uu yahay bay ku xidhanta markaa haddii uu root leeyahay waa ku shaqayn karaa qaar markaasi aad u fara badan haddii uusan root lahayna hadba awoodiisa ayay ku xidhan tahay hadda muuqaalka anigu waxaan kusoo saaraya markaa 720 HD ya imika muuqaalkii haddaan eegno waa kan isagoo soo baxay HD wax shuca ah yaraatee ma laha qaab aad u qurux badan baad ugu samayn kartaa muuqaaladaada KineMaster waa firshankii ugu dambeeyay ee la soo saaray marka aad muuqaalkaaga ku samayn karto si tayalana aad ugu samayn karto si professionalana aad ugu samayn karto qaybta hoose description-ka ayaan ku dhigaya halkaas aad markaa kala degi doontaa wax sharaxaad oo si badan kama inaan sameeyeen kaliya qaabka loo degayo iyo isagoo markaasi free umbaan muuqaalka ku soo gudbinay muuqaalada dambe ayaan ku eegi doonaa markaasi qaabka loogu shaqeeyo qaabka loogu dhitan gareeyo casharada taxana ayaan ka samayn doonaa insha Allah halkan aad kala degi doontaa markaa hoose isagoo free APK ya watermark aan lahayn tan iyo muuqaalka dambe wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh